qarnigan casriga awoodda leeyahay kaliya ma aha ciidamo iyo hub in lagu arko. Awoodda dhabta ahi waa xogta qarsoon ee aan shacabka badankoodu ogeyn. Meelaha iftiinka ka baxsan waxaa ka socda dagaal aamusan oo u dhexeeya maskaxo xeelad leh, qorshayaal qarsoon iyo sir aan weligeed warbaahinta gaari karin. Halkaas ayay ku shaqaysaa hay'ad lagu magacaabo MI6. Waa hay'adda sirdoonka dibadda ee dalka Ingiriiska. MI6 waa indhaha iyo dhagaha qarsoon ee boqortooyada Ingiriiska ee ka howlgala dalal kala duwan si ay u ogaadaan khatar kasta oo iman karta ka hor inta aysan noqon musiibo dhab ah oo ka dhan ah boqortooyada Ingiriiska. MI6 ma aha hay'ad si caadi ah loo arko, mana aha mid warbaahinta si joogto ah ula hadasho oo la macaamisha. Shaqadeedu waa mid ku dhisan qarsoodi, xeelad iyo kalsooni sir ah, taasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah hay'adaha sirdoon ee ugu saameynta iyo awoodda badan caalamka. Fahamka sida ay u shaqeyso wuxuuna tusayaa sida dawladuhu u ilaashadaan amnigooda xilli ay khataruhu noqdeen kuwa qarsoon oo aan la saadaalin karin oo heer caalami ah. Mawduuceenan waxaynu ku soo qaadan doonaa hay'adda loo yaqaan MI6 oo ah hay'adda sirdoonka dibadda ee dalka Ingiriiska. Ugu horreyn waxaan isweydiinaynaa maxay tahay MI6? Secretary Intelligence Service waa hay'adda sirdoonka dibadda ee boqortooyada Ingiriiska, taasi oo macnaheedu yahay inay ka shaqeyso arrimaha amniga iyo xog ururinta ee heerka caalamiga. Waxaa si rasmi ah loogu magacaabay Secret Intelligence Service (SIS), laakiin magac ahaan waxay caan ku tahay MI6 Military Intelligence Section 6. Waxaa la aasaasay sanadii 1909 si looga hortago hanjabaadaha caalamiga ah iyo in war laga helo dawladaha kale ee ka baxsan Ingiriiska. Headquarters-keedu wuxuu ku yaalaa London. Waxay u shaqeysaa si qarsoodi ah oo aan badanaa la shaacin. Xataa shaqaalaha badankoodna magacyadooda lama oga. MI6 taariikhdeedu waxay tahay mid aad u dheer oo xiiso leh. Waxay ka bilaabatay dadaallo sirdoon oo Ingiriis ah xilligii boqorad Elizabeth 1500 xilligii taariikhdu ay maraysay. Inkastoo urur ahaan aysan ahayn mid rasmi ah, shaqada u bilowday ilaa 1909. Intii lagu jiray dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka, MI6 waxay door weyn ka ciyaartay ururinta xogta argagixisada iyo falanqaynta qorshayaasha cadawga. Sirdoonka ayaa si rasmi ah loo aqoonsaday oo sharci ahaan loo siiyay sanadii 1994 markii la ansixiyay Intelligence Service Act, taas oo shaacisay howlgalladeeda. Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee MI6 loo magacaabay ama loo aasaasay waxa weeye: number 1, ilaalinta amniga UK. Waxay la socotaa khataraha caalamiga sida argagixisada, faragelinta dawladaha kale iyo barnaamijyada halista ah ee caalamka ka socda. Waxa kale oo loo aasaasay ama ay ka shaqeynta danaha diblomaasiyadeed. Xogaha ay ururiso waxay ka caawiyaan dawladda Ingiriisku go'aan ku saabsan siyaasadda dibadda ee xiriirka caalamiga. Waxa kale oo ka shaqeysaa taageerada dhaqaalaha iyo warshadaha Ingiriiska. Sirdoonka la helo wuxuu gacanta ka geystaa amba sirta la helo waxay gacanta ka geysataa in la ilaaliyo hal-abuurka teknolojiyadda muhiimka ah ee UK. Haddaba qaabka ay u shaqeysaa waa noocan. MI6 waxay adeegsataa habab kala duwan oo sirdoon ah, kuwaas oo inta badan qarsoon. Waxyaabaha ugu waaweyn amba tiirarka ugu waaweyn ee ay ku tirsan tahay oo ibni'aadanka. Mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ayaa ah in la helo ilo xogaal ah oo ka shaqeeya dawladaha ama ururada kale si ay u siiyaan xog gudaha oo muhiim ah. Falanqayn iyo xog ururin. Waxyaabaha ay ku tirsan tahay waxa ka mid ah in xogtii la soo helay la falanqeeyo. Xogta la ururiyo waxa lagu baaraa xarumo khaas ah si loo fahmo qorshayaasha iyo niyadda cadawga. Markaas macluumaadkaas waxaa loo gudbiyaa madaxda dawladda iyo qaybaha kale ee amniga. Waxyaabaha kale ee ay u taagan tahay ama ka shaqeysa ku tirsan tahay waxa ka mid ah iskaashi caalami ah. MI6 waxay la shaqeysaa hay'adaha sirdoon oo caalami ah sida CIA-da Mareykanka si ay u wadaagaan xogaha iyo xeeladaha ilaalinta amniga. Isbeddelka caalamka ku dhacay ma la jaan qaaday hay'adda MI6? Si la mid ah hay'adaha sirdoonka kale, MI6 waxay la qabsatay waqtigan digitalka ee caalamiga ee casriga ah. Tusaale ahaan, hay'adda ayaa bilowday barnaamij cusub ay ku isticmaasho qaybta internetka qarsoon ee dark web-ka loo yaqaan oo loogu magac daray Silent Courier. si ammaan ah si la iskula xiriiro
mararka laga cabsan qabo in si waji loo kulmo oo sirdoonku aanis arag ayaa dheg webka la isku wadaarsadaa xogaha muhiimka ee qaranka. waxaa loo arkaa intana ay tahay tallaabo si ay MI6 u sii jirto oo ay ugu sii jirto hoggaanka sirdoonka caalamka ee dhanka tiknoolajiyadda. bal waxaanu ugu dambeyn soo qaadan doonaa madaxda MI6. madaxa hay'adda waxaa lagu magacaabaa xaraf loo yaqaan C, magac loo adeegsaday si qarsoodiye. sanadii 2025 ee soo dhaafnay MI6 waxay u magacowday cidda u sarreysa Blaise Maitreweli in ay noqoto madaxeeda ugu sarreeya oo haweeney ah, taasi oo tallaabo taariikhi ah oo ah hay'adda sirdoonka MI6 ee Ingiriiska. ugu dambeyntii MI6 ma aha hay'ad sirdoon oo iska caadiya oo miskiinada. MI6 waa hay'ad sirdoon oo qarsoodiya balse saameyn weyn ku leh siyaasadda amniga iyo xiriirka caalamiga ee Ingiriiska. waxay ka shaqeysaa sidii loo heli lahaa xog muhiim ah ka hor inta aysan dhibaatooyin ka dhalan karin, iyadoo adeegsanaysa xeelado sirdoon oo casri ah iyo iskaashi caalami ah. intaynu mawduuca mid labada ku kulmi doono nabad iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.